كلي إمكن مدوان سكير داي ميدياها سببتها الميديا وحنا قضية يقال بوحورين شرح الله هذا الميديا دبلوماسي بشرة لكن يمكن واحد مدعين وبطيس سياسة ديني وحنا الميديا بوليتكس وحسابات معارضك أم بشخصياتك شغالين الحكومة دليلان أنت بدن وحي تي في يدهم بيدعوضان صباح النبضان وحكي قبطان بريس ريليس بك قبطان برقادان وحي حكمات بدن كفردين waxaan jeclay saneen aan inta badan meediyaha aan ka hadal horena waan u sheegay imka muddo sanada waxaan jeclaystay inaan meediyaha inta badan aan ka hadal laakiin maanta waxay nagu kalifeynayno isugu nimaadno Soomaalidu waxay tiraahdaa beenta hadii lagu celceliyo way rumowdaa dhacdo shalay toona ka dhacday munaasabad qayb idinka kamid inay joogteen oo ah qalinjabinta magaalada Hargeysa ayaa jecelahay xubno ka tirsan xisbiga wadaniga qodobay ka yiraahdeen inaan halkan cadeeyo hada sideedaba bilaadanku markay xil qaadaan waxa waajib ah xilka ay qaadeen in ay u gutaan si Allah ka cabsina leh bilaadanku kula xisaabtamo anagu dabeecadu ma lihin dhaqanna ma lihin haddaan kilometer dhisayno inaan meediyaha tusno laba mas'uuliyadood baan saaran mas'uuliyadda dadka aan u qaadnay iyo mas'uuliyadda Ilaahay oo nala xisaabtami doono maalmaha kamida waxa doonayaa imka dalka waxa ka socda ilaa 12 mashruuc oo wadooyinka qaar daraasad ku jira iyo qaar gacanta lagu hayo laakiin xisbiyada macaaridka waxay xubno ka tirsanay sheegeen ka hadleen laba kamida wasaaraduna muddada jirtay waxay qabatay 4 hawl qabad waxay leedahay page iyo website waad ka heli karaysaan anagoo xabaadina weydiinin hawl qabadkii isla markaana adigu xaqijin karaysaan waxa maanta Ilaahay mahadiya inaanu hayno xog facts and figures macna waxa weeyaan iska hadal maaha laakiin wax xaqiiq ku dhisan oo number ah ayaan maanta haynaa haddaan ku horeeyo mashruuca barbar corridor sida ogtihiin mashruuca waxay naga maalgelinaysaa dawladda Imaaraadka sanduuqa horumarinta Abu Dhabi Fund for Development waxa dhisaya company Imaaraatiya oo la yiraahdo MBHH waxa daraasadeeyay isla markaana supervise gareynaya isla company kale oo Imaaraada oo la yiraahdo Concert mashruuca waxa la dhagax dhigay 2019 waxa si rasmi ah u bilaabmay July 2019 progress report-kii ugu dambeeyay aanu haynaa bishan September horaanteedii aynu soo gudbiyeen kamariga dhisay MBHH mashruuca 12.48% ayaa qabsoomay waana idila wadaagnaa insha Allah waana dhiseenaynaa iyadoo document aanu dhiseenaynaa waxa iyagu waa document dhibaatadana sida waxa weeye qofka doonaya inuu topic ka hadla hadaan aqoon wixii u lahayn waxa weeyaan dadabad weeyaan dadkeena misleading buu sameeynaya wadada waxa qaybsantaa marka laga hadlo wadada standardka caalamiga ah waa laba nooc waxa weeyaan waxa la flexible roads iyo rigid roads baa la yiraahdaa marka Soomaaliland wali may gaarin stage ay dhisato waxa la yiraahdaa rigid roads oo ah wadada sabada lagu dhiso inagu inta badan waxaan isticmaalnaa flexible roads baan isticmaalnaa flexible roads kaasi wuxuu yeeshaa markuu highway yahay wuxuu leeyahay 7 layer marna wuxuu leeyahay 5 layer buu leeyahay wadada waxa ugu horeeya waa formation marka survey-ga ugu horeeya waxa ku xiga waa formation waxa ku xiga waa subgrade waxa ku xiga waa road base waxa ku xiga waa sub base waxa ku xiga in qaybta prime-ka waxa la saaray hadhow talo waxa inta ugu dambaysa asphalt-ka ama pavement-ka waxa loo yaqaan
gurigu sidoo dhismaayo marka la dhisaayo guriga marka la dhisaayo gurigu wuxuu ka bilaabmaa foundation wuxuu leeyahay stages oo maro shaqaduna waxay leedahay loo yaqaan methodologies bay leedahay iyo program bay leedahay ku socoto wadada inagu roolkeenu inta midnaba maaha inta waxa iska leh company-ga dhisaya inagu waxaanu nahay beneficiary-gii dadkii ka faa'iideysanayay lacagtana ma lihin shaqadana inagu ma lihin inaga roolkeenu waxa weeye fududayn koo inaan cashuur dhaaf la siiyo laba in meel ay degaan la siiyo saddex amnigooga inaan damaanad qaadno sidoo kale inaynu ka helo wixii caqabad ku yimaada xagga community-ga kaga yimaada xagga shaqada maaha waa xagga community-ga wixii kaga yimaada inaan la xalino waxaanu ka helnaa si joogta report-kaan idin soo diray imika ayaan si bilaa uga helnaa sidoo kale waxaanu helnaa report-kaasi madaxweynaha iyo xafiiska wasaaradda u yimaada xafiiska mashaariicda ee madaxtooyada ay report-ka helaa runtii waxa ay andara in madaxweynihii qaranka la yiraahdo kama warhaysid madaxweynuhu si joogta buu helaa waxa kale oo nasiib darro ah qofka markaad moodo brainwash markuu ku dhaco wuxuu ilooba dhacdadii shalay toole madaxweynuhu wuxuu goobta u xumaray 22 July bil ka hor buu markii uu soo furayay dafacadii ciidanka booliska ma dheera uu maray marka madaxweynuhu ma hadda nin qol ku xidhan waa nin report daily hela oo bilaa hela marka horta aad baan uga raali gelinayna madaxweynaha ummadda Soomaaliland hadalka laaqiga waxaan markaa inagu seenaarka uga qayb qaadano isla garanay dawladda Imaaraadka inaynu sameeyno wax loo yaqaan BIU ama Project Implementation Unit hay'adda wasaaradda ka tirsan oo xagga quality-ga in laga hubiyo isla markaana wixii payment loo sii deynay saxiixa inta waxaan jecelahay inaan inta kaga gudbo oo mashruuca noocaas mashruuca labaad 12 mashruuc laba mashruuc baa laga soo qaatay labada ka labaad ma doonay inaan hadalkana soo koobo soo xigmad u yeesho waa mashruuca wadada Ceergaabo Burco amba Sanaag Togdheer wadada waxa maalgelinaysa dawladda Soomaaliland waxa la bilaabay dhagax dhigeygii ugu horeeyay dabayaqadii 2013 waxa la bilaabay March 2014 mas'uulka shalay ka hadlayay jaamacadda oo markaa mashruuca ka mas'uulaha wuxuu iscaasilay 26 bishii 10aad 2015 bani muddo 2 sanadood ayuu qacanta ku hayay anaguna waxaan doonaynaa muddada 2 sanadood qacanta ku hayay muddo u dhiganta in sababta marka la doonayo wax in la isku compare gareeyo comparison baa la sameeyaa muddada 2 sanadood mas'uulkaasi wuxuu dhisay 24 kilomitir maanta waxa garbahayga jooga injineerkii guud Allah yarxame Cabdullaahi Cabdisalaam uu nintay laakiin injineerkii labaad oo Mawlid Nuux Ibraahim ayaa jooga waxa kale Ilaahay mahadiya dhulkiina waa yaala dhulkiina wuu yaala shaqaalihiina way wada joogaan waxa kale markaa mashruuca maareey ka ahaa commissioner-ka Maxamuud Daahir oo maanta alxamdulillah wuxuu joogaa Ceergaabo oo mashruuca project manager ka ah lacagta mashruuca ku baxday muddadaas waxa la qiimeeyaa value for money iyo value for work baa la qiimeeyaa lacagta ku baxday 17 milyan oo dollar baa ku baxay 24 kilomitir waxa deyn loogu lahaa mashruuca maalinta xilka wareejinayay 5 milyan Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xantaadog lama xansado dokumentiski waa yaalaan hadda doonaysa inuu dilo wadaagina lacag marka 22 milyan oo dollar ayaa waxay naga baxday 24 kilomitir ilaa markaan ka baqanayno waxa jiray ilaa 30 kilomitir oo iyada formation yar la sameeyay laakiin wadada rasmiga ah marka anagu ugu nimid wadada loogu yimid mas'uulkaas wuxuu ahaa 24 kilomitir la jecel iga jira waxa inta dheer 22 milyan anagu ma hayno recordkii
dumarka dahabka laga furay arurtana saacaha laga qaaday anagu ma hayno recordkeyga laakiin lacagta mashruuca ku baxday inuu haynaa waa 22 milyan weeyaan waayahay markaan compare garayno labadii sanadood ee anagu aan hawshan gacanta ku haynay 18 February 2018 ayaa mashruucan dib anagu aan u bilownay mashruuca waxaan ugu nimid isagoo markaa dhisan 490 kilomitir markaa 70 kilomitir waxaa dhisay wasiirkiiga horeeyay cali mareexaan baa dhisay oo koox muddo yara 70 kilomitir buu dhisay isaguna 40 kilomitir buu dhisay wuxuu cali ku guuleystay inuu sameeyo waxa la yiraahdo dhammaan wadada survey-geygii iyo formation-keygii iyo subgrade-keygii wadada oo dhan ونس وقتنا وها ولي بنا وقت wuxuu ku beegmay isagu ay ahayd waqti campaign oo muddo 7 bilood ku dhawaada mashruucaasi u taagnaa anagu labada sanadood waxaanu dhisnay 1 kilomitir 100 kilomitir baan dhisnay lacagta nagaga baxday mashruuca 100 kilomitirka comparison man doonayna isbarbar dhigno waa 8 milyan iyo 800 dad labada sanadood waana 1 kilomitir 2020 waxa harsanaa 15 kilomitir baa harsanaa markii bilowgii 2020 imika waxaan waxba laga qabanin oo aanay wali gaadhin qacantaydu waxa weey 8 kilomitir waxa kaloo noo suurta galay labada sanadood 230 Irish Bridge isagu wuxuu dhisay Irish Bridge dhisay waxa ahaayeen 3 anaga waxa noo suurta galay 230 Irish Bridge waxa kale oo noo suurta galay inaan soo iibinay 250 Calvert Bridges 17 container bay haayeen oo malayn maayo qoladiina saxaafadu inaad ka war haysaan 17 container lacagta ku baxday waxa ahayd 900 iyo $830 oo gudida qadarasada qaranka ayaa baahisay imikana ma dhaweytoole waxa ku guuleystay kambanigii dhisayay maadaama ay u baahan tahay farsamo iyo xirxiris intaas waa hawl qabadkii waxaanu sameeynaynaa comparison baynu isku barbardhiganaa waxa la oran doonaa lacagta qalab baa la geliyay muddada labada sanadood qalabkii meesha labada sanadood uu geliyay mas'uulkaasi aan jecelahay inaan halkan ka qoro aan ka xuso tirada guud ee machineries-ka qalabka wax lagu dhiso waa 840 labada sanadood intaan keenay anagu marka laga reebo 8 gaari oo hay'ad naga soo galay waa 40 muddada labada sanadood mas'uulkaasi 15 machinery buu keenay 15 ayuu keenay haddaan tafaasiil idinka siiyo waa iskargooyinka waaweyn 12 baan anagu keenay isagoo 4 buu keenay iskargooyinka yaryar 4 baanu keenay waxba muu keenin grade risk waa garanaysaa maan malaynaya 3 baanu keenay 2 buu keenay isagu bulldozer risk 3 baanu keenay 2na waanu kicinay oo meelaan ka soo qaadnay isagu xabad buu keenay xabadaana anigu guma niman mashruuc iyadoo taala roller risk 2 buu keenay aniguna 2 baanu keenay booyadaha biyaha 3 baanu keenay mid buu keenay booyadaha shidaalka oo wuxuu mashruuc gaadiidkuna way socdaan 4 baanu keenay isagu waxba muu keenin waxa jira workshop gaadiidku maadaama 95 machinery yahay wuxuu u baahan yahay workshop soconaya hal baanu keenay ugumaanu iman stone crushers ma crusherada waaweyn ee dhagax burburiya waxaanu keenay 2 isaga waxaanu sheegi kareen baa la keeno gacanta lagu gurguro aan shaqaynin oo gacanta lagu guraayay oo waxba aan soo saaraynin marka waxaanu tilmaami karnaa maaha booyadaha daamirka mid baanu keenay mid buu keenay guryaha shaqaalaha 4 baanu keenay waxba ma keenin gaadiidka kale 8 weeyaan ee shaqaalaha qaada isagu 2 buu keenay wheel load risk 2 xabuu keenay anagu waxba ma keenin wheel load risk marka tirada guud hadaan oran lahayn qalab baa ku baxay lacagtaas waxaan oran lahayn qalab baa ku baxay oo xisaabin lahayn laakiin 15 machinery buu keenay anagu 840 machinery runtii ma jeceli waxaanu sameynay 5 kaam ayaanu dhisnay 5 kaam baa jira oo 5 area imka ka shaqeeyaan
ka shaqeeya mashruuca looga shaqeeya waa 3 meelood howlqabada iyo isna 2 kaam meel hal kaam iyo hal karasharadu meesha yaalana ayuu sameeyay runtii shay kasta wuxuu leeyahay qiimeyn value for money anu marko meesha la xijaleeyay ka jirtay waxa isleeyahay mashruuc soo xirmay dacwad wax Soomaaliyeed dacwad halkay macal ku baratay macal lagu baqtidaa mashruuc 40 milyan ee oran jiray 40 milyan baan haystaa ee 40 jir baan hay horta halka laga qaatay waa halkan anigu laba shay baan codsanaya hadda maanta miidiyaha iga maqlaayo laba shay miidiyuna maraga ka noqdaan goobta aanu tagno dhulkiina uu jooga dhulkii ma guurin uu jooga shaqaalina uu joogan qodobka waan codsanaya hadduu diyaar u yahay dhammaantiina waan ku marti qaadina inaad tagno meesha qodobka labaad waxaan codsan lahayn in labadayada hanti dhowrna la geliyo hadduu diyaar u yahay labadayadaba hanti dhowr markaa kaayaga la xijala ka qaba ee kaayaga tuugnimo kula dhex jiray meesha waxa cadeyn doona wali ma hanti dhowr kaan ahayn hanti dhowrka dawladda mid madax bannaan waxa jira imka dhowr konton hay'adood oo madax bannaano hanti dhowra marka hadduu diyaar u yahay anagu diyaar baan u nahay waxyaabo cajiibka bilaadanku markuu mas'uul yahay ummadda wuxuu sheegaya waxa qurux badan inay noqoto laba malagna way ka qorayaan ummadda way ku dhageysanaysa kuna 200 aqoon yahan baad hor fadhida mashruucaasi waa 274 kilomitir 2015 bishii tobnaad 16 bishii casili 24 kilomitir baa markaa dhisnaa malaa wixii ismootiinay 24 waa 240 kilomitir u noqday 250 kilomitir baa harsanaa sidee markaa suurtagal u tahay 2016 mashruucaas ku dhamaado 2015 bishii tobnaad oo casili 2016 laba bilood baa ka harsanaa macnaheedu waxa uu been qaawan weeyaan runtii qofka bilaadanka inuu xishoodo ayaa fiican dad scholars dad aqoon yahan rag badan imka halkan jooga waxaan ogaynay shalay ka yimaadeen ama wiig horeba ka yimaadeen wadada ceergaabo horena u mari jireen waxa inta maanta leh ole waa beenta dhammaan dadka reer Sanaag waxa laga yaabaa dadka qurbaha jooga ama dadka galbeedka jooga inay ka warhaynin maanta waxaan qirayaa in ka badan 50 qof oo ku nool gobolka Sanaag inay leeyihiin waa beenta been baanadu ma daw sheegtay waxa kale oo aan doonayaa inaan idin cadeeyo nidaam baa jira oo daily report ah weekly report ah oo bilaa habeen kasta reportka mashruuca wan hela wax documentation ah oo ninka kala wareegna mashruucaas documentation oo laga hayaa ma jirto maanta haddana anagu ka tagno halka waxa dabadeeda ka muuqda idinkana idin qaybin doonaa halkan ka bilowna wadada inta imka gacanta lagu hayo inta cas waa inta aan waxba ka qabanin waana dila wadaagnay wada mashruuc wadada ceerga inta green ka ah waa inta dhameystiran greenka inta buluuga ah waxa waa inta 90% dhameystiran ee daamirka u baahan inta cas baa imka marka idin muuqata inta cas waxaan maraynaa documentation ka dhamaantii wada haysataan ila idin qabiyo aan maraynaya inta cas ayuu bahadhay kan waxa weeyaan waa master map ay imika ay leedahay mashruuca wadada ceergaabo waxa kale oo doonayaa inaan u sheego dawladda hore iyo dawladda bood oo xisbiga kulmiye waxay qabtaanna waan ku wada faanaynaa dawladda hore 3 sano markii joogtay mashruuca wadada ceergaabo bilowday anaguna halka waxaan ka balan qaadinaa markaan 3 jirsano inaan bilaabi doono mashruuca wadada Hargeysa Oodweyne iyo Burco waa balan insha Allah haddii la ka dhigo waxa kale oo doonayaa inaan cadeeyo kulay muddo 2 sanadood madaxweynaadkayga noo haray waxaan ku rajaynayaa 5 sanadood kale inaan ku darsan doono marka aanba ha tahriibo بدلك هاي شوق إن شاء الله هذا الله كريم ولد ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هو الرئيسات دوني نقوليه مقعد واحد سكي وبعين ريال تي في بنك السعودية مشروع عرقاوه ودودا شعب كسوين بيوقف قاتين حتى أرضي السكولة
lacaga laga uruurinayo xisbiga kulmiye suuqa waxa ugu jirtaa inuu yahay xisbi musuqmaasuq kii hore xukuumadda iyo kuwan imakaba markaad idinku isku eedaysaan maxamuud xaashine hadalkiisii waa kuwii xisbigii kulmiye markuu ka jawaabayay uu musuqmaasuq ku eedeynayay miyayna u muuqanin inaad u heshiiseen hantidii shacabka oo kuwaasina barkood qaateen idinkuna aad ku cadaynaysaan oo hantidii shacabku maalin baa dhinac u eriyanaysaan hortu xisbigu waa institution ballaaran inta badan qofka corruption ku dhaca waa ka qof oo ma jirto dawladooda corruption runtii waa su'aal wanaagsan annagu waxaan doonaynaa ku sheegno muddada aanu mashruucan gacanta ku haynay wax tafaruc dadka naga soo gaadhay wax jira $4,000 aad ma hadnaqay habla reer UK iyo 20 neef oo deegaanka elefin in siiyeen waxaan wax ku haynaa waa miisaaniyadda qaranka annagu dumarna daab kamaanu furan dhalinyarana saaca kamaanu qaadan sidoo kale waxaanu u turnay ciidankii qaranka oo tabarucaad ku dari jiray marka hore 20,000 laga jaro mushaarkooga maadaama ciidanku yihiin ciidan qaran oo hayntoodana hooseyso waxaan go'aaminay inaan laga qaadin tabarucaadka imika tabarucaadka waxa bixiya shaqaalaha sideedana corruption kuma noqdo wax magarasa universal ah amba collective wax guud qof ba ku ekaanaysa marka runtii waa arrinkaas intaas ku eegi